Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga kusoo dhawaada barnaamijyadeena caafimaadka indhaha maanta haduu ilaahay rabo waxaan ka hadlaynaa nooca noogu dambeeyay ee qaliinka indhaha qalooca indhaha ama weershaha indhaha ku dhawaad 3 nooc aan kasoo hadalnay weershaha isha oo isha banaanka ay u baxeyso dhanka oo dhagta ay aadeyso waxaa kaloo kasoo hadalnay weershaha isha oo dhanka sanka ay soo aadeyso waxaa kaloo kasoo hadalnay weershaha isha oo qaybta kore ay aadeyso oo qaybtan kor ay aadeyso oo tinta dhankeeda ay aadeyso ugu dambeyntiin hadda maanta waxaan ka hadlaynaa weershaha isha oo qaybta hoos soo galayso isha ay hoos soo galayso insha Allah waxaan ka hadlaynaa afka qalaad waxa lagu dhaho waxaa kaloo ka hadlaynaa waxyaabaha koos gareeya ilmaha yaryarka iyo dadka waaweynka calaamadaha qofka oo kasoo muuqanayo sida lagu ogaan karo iyo sida loo daaweyn karo hal su'aalna inaan ka jawaabo waan rabaa oo dadkan oo mataqaanaa qalooca indhaha ka cabanayaan ay nooc ahaado dadka waxay u maleynayaan qalooca indhaha in la daaweyn karin mar walbana waan kusoo celcelinaa da' walba qofka ha jiraado waa laga daaweyn karaa xataa 90 jir hadduu qofka yahay waa laga daaweyn karaa ama lagu daaweeyo qofka qaliin ha loogu daaweeyo ama qaabyo kale oo lagu daaweeyo sidoo kale soomaalida inta kale waxay u taqaanaa qaliinka mataqaanaa qalooc indhaba kaliya qaliin in lagu daaweyn karo runtii waxyaabo kale lagu daaweyn karaa oo qaabab kale loo daaweyn karaa haddaan ka hadalno qalooca indhaha ee isha hoos u galayso afka qalaad waxaa lagu yaqaanaa hypertropia hypo waxaa waaye hoos waa oo downward waa halka tropiadan ay tahay weershaha muuqdo waxaa jira weersho qarsoon iyo weersho muuqdo intan waa kasoo kala hadalna oo fiidiyaal aan kaga soo hadalno qaloocaas indhaha marka maxaa waxyaabaha qofka ku sababa ka hadlaynaa marka oo mataqaanaa waxyaabaha qofka inuu indho qaloocaas oo ku sababa ayaa maanta ka hadlaynaa haduu ilaahay yiraahdo kow waxyaabaha ku sababa oo mataqaanaa hadduu cunuga hadduu yar yahay tusaale ahaan hadduu yar yahay macnaha waxaan kaga jeedaa 8 sano hadduu ka yar yahay isha qof maalinkoo dhasho ilaa sanadka 8 sano uu ka gaarayo aragtidiisa koritaan ku socdo isha koritaan ay ku socoto markuu 8 sano uu gaaro sida buugaagta ku qoran aragtida way joogsanaysaa soo marka 8 sano wixii ka yar waxyaabaha ugu sababi kara waxaa ka mid ah mataqaanaa qofkan inuu ku dhashabo oo maalinkoo dhalanayaba in lagu arko oo congenital loo yaqaanaa congenital inuu ku dhasho sidoo kale waxaa kaloo ku sababi karo development isheeda inuu problem uu ku jiro isha markii koritaan ay sameynayso mataqaanaa vilar inuu ka jiro labada indho isla shaqeynayaan sidoo kale waxyaabaha koos gareyn karo waxaa kaloo ka mid ah oculomotor imbalance waxa la dhahay basaliska ugu waaweyn isha mataqaanaa gaar ahaan basalka saddexaad neerfaha saddexaad ee quudiyo isha qeybeed ugu badan mataqaanaa problem inuu ka jiro imbalance inuu yahay dadka waaweynkan waxaa ku sababi karo muscle weakness inuu jiro aragtidooda inay yartaa qofka dad qaarkood waxaa jira aragtidooda aad ay u yartaa qalooca indhaha wuu soo muuqanaa sidoo kale waxaa kaloo jiro dadka oo muscle weakness waxaa la dhahay dadka qabo oo murqaha isha inay daciif ay yihiin waxa qofka oo inta inoo fiiriyo oo geeskan inoo fiiriyo oo kor inoo fiiriyo waxaa maamulo murqooyin maamulo oo isha isku haya murqooyinkaas inuu weakness inuu jiro sidoo kale murqooyinkaasi neerfayaasha quudinaya inay problem ay ka jiraan sidoo kale waxyaabo kale ku sababi karo waxaa kaloo ka mid ah mataqaanaa cudurrada jirka dadka qabo ama waxaa kaloo sababi karo dadka jugta soo gaarto ama jug oo mataqaanaa ulaha kaaga dhacdo ama feer lagaaga dhufto ama jug ay nooca kaaga soo gaarto mataqaanaa jugta indhaha ku dhacaya asigana qalooca indhaha ay qaybta hoos isoo gala iyadana way sababi kartaa waxyaabaha kaloo sababi karo waxaa ka mid ah cudurrada jirka ku dhaca sida thyroid eye disease waxa la dhahayo waxaa kaloo sababi karo heart disease cudurrada oo wadnaha ku dhaco sidoo kale waxaa kaloo sababi karo cudurrada ku dhaco mataqaanaa thyroid eye disease-ka iyo stroke cudur laha oo mataqaanaa maskaxda dhiig kaga furmaayo calaamadaha qof kasoo muuqanaya waxaa ka mid ah hypertropia calaamadaha qof kasoo muuqanaya laba qof inuu wax u arko oo double vision ah mostly calaamadaha ugu waaweyn oo leeyahay ay ka mid ah oo qofka mataqaanaa waxa labo inuu wax u arko sidoo kale qofka markuu wax akhrinayo inuu akhrinta qofka uu dhibo madax xanuun joogto oo qofka inuu ka cawdo blurry vision waxa la dhahay qofka aragtiisa cawar inay noqoto labada indhana inay isla shaqeynaynin oo mataqaanaa molecular vision problem inuu dhaco waxyaabaha kala dhici kara waxaa kaloo ka mid ah isha separation in lagu sameeyo separation kaani wuxuu ka dhalaa separation waxaa la dhahaa isha mataqaanaa isha xanuunsan oo qalooc isha inay jiro in ignorance lagu sameeyo oo mataqaanaa la inkaro isha maskaxda dhan ay inkarto runtii meesha wax lagu arkaayo oo mataqaanaa isha ay amar ay ka qaadato oo geeskan ay fiirinayso ama geeskan ay fiirinayso meesha laga maamulo waa maskaxda jirka maskaxda oo bini'aadamka soo marka
isha kaliya waxaa waye meel wax lagu arkayo lee waye oo iftiinka ay gudbinayso laakiin meeshaas waxaasaa aragtay inuu dad uu yahay duwaag inuu yahay mataqaanaa waxa kala maamulaya waa maskaxda marka maskaxda inuu problem uu ka jiro mataqaanaa separation saas ay ku dhacdo diplomadiisa ku dhacda marka qofka labo inuu wax u arko sidee wax u arkaa waxay wax u aragtaa wuxuu ku dhacaan lahay qofka mataqaanaa maskaxda in loo diro sawir fiican iyo sawir xun labadaba isha hal sawir inaa u dirto marka labo inuu qof wax u arka saas oo ku dhacaysa sidee marka lagu ogaanaa marka baaritaan loo sameeyo baaritaano lagu sameeyo waxaa kamid hal in qofka in laga daboolo ama cover test waxa la in loo sameeyo sidoo kale hairbrush test waxa la in loo sameeyo waxaa kaloo cover test oo prism la adeegsanayo in loo sameeyo ugu dambeyntii sidee loo daaweeyaa daawada soomaalida kaliya waxay u taqaanaa qaliin kaliya qaliin laguma daaweeyo oo waxyaabo kale lagu daaweyn karaa sida mataqaanaa qofka waxyaabaha koos gareynaya in laga daaweeyo treatmentiga sida tusaale ahaan mataqaanaa hadduu qofka aragtida dhow uu ka cabanayo aragtida fog hadduu ka cabanayo waxaas dhan in laga daaweeyo sidoo kale waxyaabaha kale oo baaritaanka daawooyinka lagu sameyn karo eye glass lagu daaweynaa oo ookiyaalo ama prism asoo la isticmaalo lagu daaweynaa eye exercise loo sameynaa exerciseka isha aad ayuu u fiican yahay oo isha loogu sameynaa eye exercisekaas loogu sameynaa hadduu mataqaanaa qaloocyada indhaha kale hadduu ka cabanayo oo isha kale ay ku jirtana waa laga daaweynaa oo tusaale ahaan isha hadday gudaha ugu jirto banaanka ugu jirto ugu dambeyntiina eye surgery qofka loogu sameynaa oo mataqaanaa qaliinka isha loogu sameynaa surgeryada qaliinkaasi laakiin qaliinka isha waa qaybta u dambeysa oo last chance fiidiyoda ugu dambeeya oo qalooc indhaha kaga hadlayno idinkaga mahadcelinaya daawashada fiidiyogan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.